السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوادا كنا soo dhawaada channelka Rumaan Media magaciiguna waa Cabbaas Mustafa waxaan maanta muqalkena ku soo qaadan doonaa meeraha Mars intaan muqalka u gudagelin like saar videogan wuxuu naga saacidi karaa YouTube-ka inuu dad badan gaarsiiyo saynisyahanadu waxay xaqiijiyeen in laga helay harooyin saddexaad oo gudaha meeraha Mars ama meeraha cas harooyinka ayaa ah kuwa qadiim ah oo dhex fadhiyaan biyo dareere ah 2018 sidaan oo kale ayaa laga helay Marso hero taasoo ka dhigayso 4 hero tani waxay rajo sii gelinaysaa aadamaha oo in nolol ka suurgeli kara meeraha Mars oo lagu naanayso meeraha cas afkeena looga yaqaano Freere ayaa ah meeraha afraad ee bax qoraxeedkeena waana meeraha ugu dhow dhulka 8 meero waxa uu qoraxda u jiraa masaafo 212 milyan oo kiiloomitir baaxad ahaan waxa lagu tilmaamaa inuu dhulka barkii la eg yahay maadaama dhaxalkiisu uu yahay kala bar kan dhulka sidoo kale wuxuu leeyahay laba dayax waa meero aad u shaabaha dhulka maalintiisu waa tan dhulka oo kale waana 24 saac kaliya 37 daqiiqo ayay ka badan tahay maalinta dhulka 24 saac iyo 37 daqiiqo halka sanadka uu u dhigmo 687 maalmood oo kuwa dhulka ah heer dhulkiisu waa mid aad u qabow ah cimiladiisu waa inta u dhaxayso -153 ilaa 20 digrii sida dhexdhexaadka ahna waa -60 digrii shaabahada uu shaabaha dhulka awgii ayay aadamuhu waqti badan ugu baxsheen meerahaas oo in xog badan laga ogaado waxaa loo diray dayax gacmeedyo aad u badan oo xog baarayaal ah kuwa badan oo ku duldegay sawir ay soo direen ayaa muujinaya in Freere uu yahay sida dhulka saxaraha uu yahay buurley eryaamo caasi ka buuxa wali nolol suurgal ah lama soo sheegin si ay wax u qorsheenayaan 10 ilaa 20 sano ee soo socdo in aadamaha loo diro lana dejiyo halkaas waa Freere waa rajada labaad ee aadamuhu haysto haddii nolol wanaagsan uu ku arko oo ku suurgeliyo inuu ku noolaado masaafada oo dhulka u jiro ee ugu yar ilaa 56 milyan oo kiiloomitir inside oo ah dayax gacmeedkii ugu horeeyay ee gaaro Mars waxay ku qaadatay muddo 6 bil ah